bismillaahi raxmaani raxiim. qofka aan dadka ku shukrin ama u mahadcelin ilaahayna kuma shukriyo. oraahdaas nabigeena allahuma salli wasalam caleyh ayaa yiri in qofka kale u mahadceliyo waa muhim, in mujtamacana caafimaadkeeda ayay ku jirtaa. ibliis shaydaanka markuu ogaaday muhiimadda shukriga uu leeyahay, markii la soo eriyey wuxuu ku dhaartay, ilaahay wuxuu yiri waxaan ku dhaartay inay badankooda noqon kuwa kugu shukriya. markii aa fiirisana ibliis guurka wuxuu ku dudumiyaa qaybtan ah mahadnaqa ama shukriga. wuxuu ilowsiyaa lamaanaha inay lamaanahooda ay ku shukriyaan ama u mahadceliyaan. runtii maanta waxaa arkaysaa guryo badan oo Soomaaliyeed oo ammaantii iyo mahadcelintii uu ka maran yahay. mahadcelinta iyo ammaanta waa misbaaxa guriga, taasna haddii la waayo guriga mugdi ayay u keenaysaa. tusaale ahaan waxaa jirtay wiil oo xaaskiisa go'doominayay, yacni waxay isqabeen muddo 10 sannadood ah. waalidkii ayaa weydiiyey, wiilkaygiiyo maxaa u go'doominaysaa xaaskaaga? wiilkii wuxuu yiri aabba isqurxintii daysay, yacni isma qurxiso. marka aabbihii gabadhii weydiiyey, gabadhii waxay tiri imise maraan aan labisanaa isqurxinaya, laakiin wax amaah ah ama faalo ah kama bixineen. anigana waxaan isdhahay ninkan isqurxin dan ma ka laha, waa iska dhaafay isqurxinta dhan. marka aabbihii wiilkii ku jeestay, wiilkayga adaa gardaran uu yiri xaaskaaga ammaanta ha u diidin, hana ka daalin, mar walba waa ina ammaantaa sidii ay u daa'into isqurxinta. sidoo kale maanta waxaa jiro rag badan oo xaaskooda wax badan u qabta oo kaalmeeya, laakiin oo ka weysan kelimadda mahadsanid ama jazaaka allahu khayran. taasna waxay ku abuuraysaa ragga yacni ciil. rag waxaa jiro 10 sano xaaskooda wax u qabanayo oo aan kelimad mahadsanid ama jazaaka allahu aan ka maqlin. runtii haweenka taas waa ku eedaysan yihiin, yacni waa dabeecad oo ay ka gaabiyaan haweenka oo caadow ah. soomaalidaba waxay tiraa abaal raaga rag baa leh, mid baaqdana habeen baa leh, mid dhaqsadana xoolaa leh. macnaa habeenka waa meesha ay ka gaabiyaan. taas nabigeennan wuxuu amray inay sadaqada badsadaan. maantana waan aragnaa haweenka ayaa ugu sadaqa badan markii la fiiriyo. sidaas darteed waxaa naga waana ah walaalayaal, in qofka ragga ahi uu ka daalin ammaanta xaaskiisa, inuu xaaskiisa mar walba ammaano. markay xaaska isqurxiso ama wax fiican qabato, inuu si daacad ah oo kashka iyo laabta ka soo go'day uu ammaano. khubarada guurka waxay leeyihiin markii xaaskaaga ammaanaysid waxaa fiican in si tafatiran u ammaanto. cuntada markaa ka faaloonaysa dhahdid, wallaahi cuntada maanta si fiican u karaysay, cusbada say u miisaaman tahay waa yaabaysaa. ama dhar markay labisato, yacni inaad dhahdo cambuurkan, kalarka cambuurkan jirkaa wuu soo saaraa, quruxdaada soo saaraa. waxaan xasuustaa nin waalid ah oo oday ah, maalin anoo yar aan maqlay xaaskiisu wuxuu ku dhahay, mar alla markaan quruxdaada arko caafimaada i noqotaa, madax xanuunkii ihay xataa waa idaayaa, waa anigoo asbariin qaate oo kale madax xanuunka dhana iga bax. marka xaaskii markay taas maqashay, yacni farxaddeeda waxaa moodaa qorax hadda soo baxda camal, wejigeeda soo u dhalaalay. sidoo kale midda labaad waxaa naga waana ah, gaar ahaan haweenka, inay markii ninkoodii uu howl u qabto ama guriga wax u qabto ama tacab badan soo sameeyay, inay u mahadceliyaan oo ay u mahadnaqaan. taasna waxay ku dhiirigelinaysaa raggii inay mar labaad hawshii ku celiyaan, waa dhaqaajinaysaa. laakiin shaydaanka ibliis wuxuu ku leeyahay, ibliis gurigiisa waaye, maxaa u mahadcelinaysaa? ama haddii aad u mahadceliso mar dambe wax ma kuu sameynaya, shibka dheh, u sheegin. taasna runtii ragga waxay u tahay macnaa waa u daran tahay. ragga in loo mahadceliyo aaday u fiican tahay, ha ka daalin mahadcelinta. midda saddexaad, waxaa muhim ah in caruurteena aan sharafno oo aan ammaano, aana u mahadcelino. waalidiin badan ayaa arkaysaa oo caruurtoodii aan ammaanaynin oo ammaanta ka hagranaya. waxaa jirtay gabar dhakhtar ah oo yacni wax u qabanaysay dadka waalida ama depression ku dhacay,
badankoodii waxay ku dhehaysaa waxay ka cabanayeen markay yaraayeen ayaa waalidiintoodii aysan amaanin ama aysan sharfin ama aysan dhiirigelin. taas darteed waalidkiina wuxuu dhintay wiilkiiyo ama gabadhiiyo amaanin, marka xoogaa cuqdaday ku noqotay. marka waa inaan ilmaheena ammaanaa, markay imtixaanka ama qur-aanka xafidaan aan ammaanaa, aan dhiirigelinaa. markay imtixaanka la soo dejiyo inaan fiirino maadooyinka ay buundada fiican keeneen. waalidiin waxaa jiro oo fiirinaya maadooyinka ay buundada yar keeneen keliya, aan fiirinayn kuwa ay natiijada fiican keeneen. waxay leeyihiin maxaa D u keentay kan, maxaa kan C u keentay. marka wiilkii ama gabadhii waxaa ku dhacaya qalbi jab. marka caruurteena waa inaan ayagana ammaanaa. gabadhaada noqo inaad dhahdo midka ugu horeeya oo dhaho inaad dhahdo gabadheedii ilaahay qurux buu ku siiyey, waa qurxan tahay. intuu qof kale dhihi lahaa adiga u sheeg gabadhaada. intaasaan kusoo gabagabeynaynaa. waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkan walaalayaal. waa barnaamij taxane ah, waa barnaamijkii horumari ummadaada. waxaa soo saarihii uu yahay, soo saarihii waa Baazi Xaaji Busuri. waxaa kaloo isku soo duburaday walaalkeen Axmed Amiin Xasan. walaalayaal gaarsiiya walaalihiina kale si ay ugu faa'iidaystaan. idinkana subscriber ka noqda oo isdiiwaangeliya si uu toos idinkugu soo gaaro barnaamijyadan. waa barnaamij taxanaa insha allahu tacaala. allah noogu wada anfaco. khayr ayaa idin dhaafay. jazaakum allahu khayran.